hal qoys oo ku dhowaad hal qarni haysta Bollywoodka Hindiya. Halkan aad naga dawanayso waa deeqsame, magacaygu waa Maryan Adan Xaaji. Muddo ku dhow hal qarni, magaca abtirka uu galo ee Kapoor waxa uu madadaaliyaa malaayiin qof oo ka mid ah dadka daawada filimada Hindiya ee ay samayso shirkadda Bollywoodka. Qoyska reer Kapoor waa qoyska u faca weyn jilintaanka aflaanta Hindiga ah. Jilayaal magacaas ku abtirsada oo hal qoys ka soo wada jeeda ayaa sanad walba heerka ugu sarreeya uga jira samaynta filimada. Inkastoo xubno badan oo ka mid ah qabiilkan ay noqdeen atoorayaal, atariishooyin, filim hagayaal, filim soo saarayaal iyo xitaa farsamayaqaanada dhinaca istuudiyaha, haddana waxaa jira shakhsiyaad gaar ah oo magacyadooda aysan weligood ka hari doonin taariikhda Bollywoodka. Qoyskan waxay sheekada jilistooda ka soo bilaabanaysaa 1928, markaasoo Prithviraj Kapoor uu ka soo muuqday filimkiisii ugu horreeyay. Xilligaas waxaa la samayn jiray filimada aamusnaanta, laakiin magaciisu ma aamusnayn, si weyn ayuuna ugu soo caan baxay xirfadiisa. Filimkii ugu horreeyay ee Prithviraj Kapoor laga daawado waxaa lagu magacaabaa Dodari Talwar. Kadib markii uu horumarin ku sameeyey hab jilitaankiisa, wuxuu ka soo muuqday filimkii ugu horreeyay ee Hindiya ee lagu hadlo. Wuxuu ahaa filimkii Alam Ara oo soo baxay sanadkii 1901. Wuxuu jilay in ka badan 40 filim. Sanadkii 1944 wuxuu aasaasay masraxa Prithvi oo uu isaga si gaar ah u lahaa. Abaalmarinadii uu ku guulaystay waxaa ka mid ah tan lagu magacaabo Dada Saheb Phalke oo ah bilada ugu sharafta badan dalka Hindiya. Raj Kapoor waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa ninka guulaha ugu badan ka gaadhay 3 wiil ee uu dhalay Prithviraj, kuwaasoo dhammaantood noqday atoorayaal. Kadib markii uu guushiisii ugu weynayd ee dhinaca jilista gaadhay, wuxuu raacay raadkii aabihiis, wuxuuna aasaasay shirkadda RK Films. Intii u dhaxaysay 1950 meeyadii ilaa 60 meeyadii ayuu ku raaxaystay xirfadiisa jilitaanka, mar uu atoore ahaa iyo mar uu filim soo saare ahaaba. Filimadiisii ugu caansanaa waxaa ka mid ah Awaara, Barsaat, Shree iyo Mera Naam Jokar. Wuxuu dhashay 1924 wuxuuna dhintay 1988. Rishi, oo ah wiilkii ugu yaraa ee uu dhalay Raj Kapoor, wuxuu isagoo carruur ah ka soo muuqday filim uu jilayay aabihiis. Laakiin markii uu gaadhay da'da 20 sano ayuu la wareegay jilistii filimada Bollywoodka, wuxuuna ka mid noqday atoorayaashii ugu caansanaa ee abid soo maray Hindiya. Muddo 10 sano ah ayuu hormuud u ahaa jilayaasha Hindiya. Markii ay dada ka daba timid wuxuu u wareegay doorka caawinta atoorayaasha ee jilista. Bishii Abriil ee sanadkii 2019 ayuu geeriyooday kadib markii uu 2 sano la xanuunsanayay cudurka kansarka. Karisma oo hogaaminaysay jiilkii afaraad ee reer Kapoor waxay ahayd haweenaydii ugu horreysay xubin ka ah qoyskan ee jilitaan samaysa. Waxay shaleemooyinka qabsatay sannadihii 90 meeyadii iyo horaantii 2000. Filimkii Raja Hindustani ayuu ahaa kii ay guusha ugu weyn ku soo hoysay, kuna hanatay abaalmarinta Filmfareka ee atariishada ugu fiican. Walaasheed ka yar Kareena ayaa 10 sano kadib bilowgii Karisma soo gashay xirfadda jilitaanka, iyadoo ka soo muuqatay filim dagaal ah oo lagu magacaabo Refuge. Gabdhaha uu awowga u ahaa Raj Kapoor weli way ku dhex jiraan jilista filimada, waxayna magacyadooda ka mid yihiin kuwa ugu caansan ee atariishooyinka. Ranbir, oo ah wiilka uu dhalay Rishi, wuxuu isagoo dhowr iyo 30 jir ah soo caan baxay sanadkii 2009, markaasoo uu jilay 3 filim oo dhammaantood wada guulaystay, iskuna xigay. Tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyey, xiddigan reer Kapoor sare unbuu u sii socday. Wuxuu aruursaday abaalmarino badan oo uu ku mutaystay atooraha ugu wanaagsan.
Wuxuu ka soo muuqday filimka Sanju oo ka mid ah filimada lacagta ugu badan ka soo xareeyay taariikhda Bollywoodka. Hadda waa mid ka mid ah atoorayaasha lacagta ugu badan ku qaata jilitaanka, wuxuuna haystaa adduun lacageed oo gaadhaya 44 milyan uu ku helay 10 sano keliya gudahood. Fadlan sheer garee si aan u helno saaxiibo aado kale ah. Mahadsanid halkan aad naga daawanayso waa deeqsame. Magacaygu waa Maryan Adan Xaaji.